noloshu maxaad ka baratay? waxaan bartay in hadal gaaban oo idin dhaxmara qof xikmad badan ama dood yar ay u dhiganto bil duruusteeda oo kale. waxaan bartay inaysan muhiim ahayn maxaad hadda haysaa, laakiin ay muhiim tahay xagee daqiiqadan kadib rabtaa inaad gaartid. waxaan bartay in qofka uu khayr badan tahay inuu ahaado diin ku socdo dariiqa toosan inta uu ahaan lahaa deero ku socdo dariiqa haladka ah. waxaan bartay in furaha khasaaraha uu yahay inuu qofku isku dayo inuu raaligeliyo cod kasta. waxaan bartay in camalka wanaagsan uu aad uga fiican yahay hadal wanaagsan oo kaliya. waxaan bartay inay badan yihiin dadka hela waanooyin badan laakiin ay yar yihiin inta ku dhaqanta. waxaan bartay inaan khasaaraha qayb ahayn laakiin ay qayb tahay inaan waxba la tijaabin. waxaan bartay in qofku uusan hoogin haddii uu khasaaro laakiin uu khasaaro marka uu joojiyo dadaalkiisa. waxaan bartay in qofka guusha gaara uu yahay kan sabirka iyo dulqaadka badan. waxaan bartay in xubka ugu weyniyo qofka helaa uu yahay sabirka iyo waqtiga. waxaan bartay in lagama maarmaan tahay in qofku isku dayo inuu sameeyo camal gaarsiiyo ilaa xidigaha laakiin uusan iloobin inuu lugihiisa ay dhulka joogaan. waxaan bartay in marka aad qoslaysid uu adduunka oo dhammi kula qoslayo laakiin marka aad ooynaysid aysan kula ooynaynin. waxaan bartay in farqi weyni u dhaxeeyo tijaabinta badan iyo ka quusashada. waxaan bartay in geedka miro badani uu yahay kan dadku mar walba hujuumo. waxaan bartay in dareenka wanaagsani uu yahay kuu naftaada ku qanacsan tahay adigoo ogsoon waxaad samaysay inay wanaag ahaayeen adduunka oo dhammiba ha kula oloobaane. waxaan bartay in wax kasta oo aan u aragno inay weyn yihiin oo adduunka yaal markii hore ku bilowdeen fikrad yar kana bilowdeen wax yar.